waxaa saaka ka bilowday magaalada Muqdisho banaanbax ay dhigayeen qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskoolada kuwaasoo maalmihii la soo dhaafay u fadhiyay imtixaanka shahaadiga ah ee ay dawladdu qaadaysay. Boqolaal arday ayaa waxa iskugu yimaadeen taalada daljirka Dahsoon, iskooyska Soobe iyo meelo ka mid ah iskooysyada magaalada Muqdisho. Ardayda banaanbaxa dhigaysay oo la hadlayay warbaahinta ayaa sidan u dhigayay cabashadooda. maadaama ay mas'uuliyad xumo ay ku tahay dawladda federaalka Soomaaliya inay maanta ardayda banaan baxdo annagoo maanta 11 sano waxa soo baranayna kursi soo badnay oo u soo rafaadnay ayadoo bilson lagu jiro cibaado lagu jiro habeenkan u soo rafaadayna oo dibadna u soo marnaadana lacagiina laga arursaday walaa imrana lagu aad walaa dibkeeda leedahay waxaan qabnaa in afarta maadada la soo bedelo maadaama imtixaan lagu celin hadana 10 dambe ay ku jirto laylatul qadr alf shahr ay ku jirto maadaama wallahi maanta sanadkan waxaan galeeyay oo imtixaanka laga baajiyay waxaan galay 6 maado oo ka tirsan maadooyinka saddex bari aan galeeyay waxaan la hartay 4 maado oo ka tirsan maadooyinka ayadoo imtixaanka dhan looga hadlay laba bari waxaan marka ka xunnahay oo maanta isku soo baxnay imtixaanka isaga ah hal asbuuc la qabtay oo saddex bari aan soo galnay in maanta laba bari ay ka dhamaatay laga baajiyo waxaan kaloo ka xunnahay waalidiinta nada anagana dhashay inta soo tarbiyeenay oo intaas lagu soo tarbiyay imtixaanka soo barana intaas iskuulka 12 sano lagu soo caawinay illa aflagaadiyo in yiraahdo imtixaankii soo gadeen imtixaankii qishkii soo raagay aflagaadiyo runtii waxa weeye anaga lacagta laga qaatay waxa lagu tagay in yiraahdo xajka lagu aala xajkaas xaqo ma noqonayso waxaan ambaareenaa in maanta imtixaankii naga baaqdo lagu aadiyo maalmo ay ku aadan tahay ciidii isku diyaariyaheed hadduu ciidii anaga ciidina anaga gaalama yihiin muslimiin aan ahay waxaan kaloo sheegaynaa imtixaankaas go'aanka wasiirka waxbarashada ayaa waxaa ka dhashay kala aragti duwanaan iyada oo baraha bulshada aad loogu hadalhayay oo ay dadka qaar taageerayeen wasiirka halka qaarna ay ka soo horjeedeen. imtixaanaadka ayaa dib loo dhigay 27 bishan kaasoo ku eg 30 May waxaana wasiirku sheegay inta ay socdaan imtixaanka la joojin doono isticmaalka baraha bulshada. hase ahaatee dadka ku xeel dheer arrimaha waxbarashada ayaa sheegay in fadeexadda qabsatay wasaaradda waxbarashada ay ahayd in tallaabo laga qaado mas'uuliyiinta wasaaradda. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere, Sam News TV, magaalada Muqdisho.